waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo shirkeyga jiraayid maanta wuxuu ku saabsan yahay mahadcelin ballaaran aan u jeedinayno qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee deganeed dibdamiska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo aan ugu mahadcelinayno gacantii ay siiyeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed muddo dibdamiska oo ay ayaamo soo socotay waxaan rabnaa inaan u mahadcelino odayaasha dhaqanka dhalinyarada indheer garadka intooda badan ee degneed dibdamiska ee nala gartay weyneeyay baahida ummadda Soomaaliyeed degan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka ay u qabaan in dibdamis casri ah oo nidaamsan la helo waxaan leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed indheer garadka iyo cid walba oo gacan ka siisay in dibdamiska maantay shaqadiisa ay bilaabato waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin bulshada Soomaaliyeed intii deganeed waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo ilaa 6 qodob oo ku saabsan arintaas ciidanka booliiska Soomaaliyeed saaka waxay dibdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada Muqdisho u noqon doonta dibdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday magaalada Muqdisho tan watay arinta dibdamiska tirkoob uu sameeyay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa 147 meelood oo qayb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baabaaday hanti Soomaaliyeed oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska Soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheer garadka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed sida aad la socotaan booliisku wuxuu waqti dheer siiyay muwaadiniinta deganeed goobtaas waqtigaas oo maanta ku ekaa odayaashii dhaqanka iyo bulshadii nagala shaqaysay waqtiga maanta ku ek ee arinta dibdamiska noo mahadcelina waa dad ku dayasho mudan odayaashii dhaqanka iyo dhalinyaradii ka shaqaysay arinkan dadka intooda badan maadaama ay guureen intii hartayna maanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed baawur iyo wax kasta ugu deeqay insha Allah odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada gacanta naga siiyeen aad ay u mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halka deganaa oo intooda badan arinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin anoo rabna inaan u mahadcelino bulshada Soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan dibdamiska oo garowsaday in baahidan ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed loogu adeego goobtii oo qaarkood ayaga si isxilqaan ah u guuray goobta ugu guuray muddo horeba ka guuray kuwii u dambeeyayna shalay iyo darad ay ka guureen inta hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska Soomaaliyeed sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn oo ay ku guuri lahaayeen maalmaha soo socda goobtan waxa la bilaabi doonaa dhismaheedii dibdamiska oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay 140 ka meel ee gubatay qaab loogu gurmado la waayay in dibdamiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado haday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baawurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara dhamaantood waxaan rajaynayaa in dibdamiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada Soomaaliyeed ay qabto number 6 waxaan aad ugu mahadcelinaynaa intii gacan naga siisay goobta hawshan lagu guuleysto ay bulshada u hoggaansanto ama awaamirta ka soo baxda dawladeena hawshan oo aad dareemi kartaan culayska ay lahayd balse waxaan noo fududeeyay dadka deegaanka oo garowsaday u hoggaansamay awaamirta dawladda oo aan leeyahay mahadcelin ballaaran maanta aan ka daalay mahadceliyo bulshada Soomaaliyeed ee garowsatay in dhulkan dibdamiska ah baahidiisa ay taagan tahay markaan la shirnay tusinay dhibaatooyinka magaalada ka jira tusinay dibdamiska baahida loo qaba waxay garowsadeen si mutadawacnimo inay goobtaas u baneeyaan waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed inteedii arinkaas gacanta ku lahayd waxaan anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa idin siinaynaa mahadcelin ballaaran waxaan rabaa inaan saxaafadda ka codsan inay la shaqeeyaan
ciidamada ku jira shaqadaas u hogaansama ama awaamirta ay siin doonaan ciidanka saxaafadana waxaan leenahay dabdamisku bulshada degneed iyo booliisku way wada shaqeeyeen wuu dhamaaday dhismihiina waa la bilaabayaa inay ka shaqeeyaan wanaagga ay gacan siiyaan bulshada horumarkeedii tusaan dabdamiska baahida loo qabo naftirkeeda insha Allah saxaafadda waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidamada awaamirtooda u hoggaansamaan waana mahadsantiin